Ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid. Warar aan ka helnay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aad uga carooday warbixin la soo saaray oo sheegaysa in Soomaaliya ay noqotay dalka ugu musuqmaasuqa badan dunida. Soomaaliya ayaa dalalka dunida ku hogaamisay diiwaanka musuqmaasuqa hay'adaha ilaa iyo 180 dal ee la soo saaray, sida ay sheegtay hay'adda qaabilsan ee Transparency International. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ballan qaaday markii uu xafiiska imaanayay in uu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa isla markaana xisaabtan adag la marsiin doono shaqsigii lagu arko musuqmaasuq, balse arrintaasi ayaanan ilaa iyo hadda waxba ka soo muuqanin. Sida laga soo xigtay waxyaabaha musuqmaasuqa ka qayb qaatay in ay yihiin dagaalada dalka ka taagan, laaluushka iyo musuqmaasuqa baahay oo dhanka siyaasadda ah. Hay'adda waxay ku baaqday in dowladda Soomaaliya ay samayso isla xisaabtan dhab ah oo siyaasadeed, gaar ahaan hirgelinta tallaabooyinka la dagaalanka musuqmaasuqa. Dowladda Soomaaliya ayaa hadda ka hor beenisay diiwaanka musuqmaasuqa oo ay hay'adda Transparency International soo saartay, isla markaasna ku tilmaantay waxba kama jiraan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sanadkii la soo dhaafay ansixiyay sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa. Dhanka kale, wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dowladda federaalka ay labadii maalmood ee la soo dhaafay u daabushay ciidamo gaaraya in ka badan 100 askari kuwaasoo laga dejiyay degmada Luuq. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi ayaa sheegay in dowladda ay ciidamo ka dejisay degmada Luuq, isagoo ugu digay dowladda inay ka horiso gobolka geliso dagaal dhiig u daata. Waxa uu sheegay in ciidamada la geynayo gobolka Gedo ay gadaal ka riixayaan 2 nin oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo magacyadooda uu ku sheegay Cabdullaahi Kulane oo ah kaaliyaha taliyaha NISA iyo nin lagu magacaabo Sakriye. Alqaadi ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka aysan jirin sharci u oggolaanaya in ay soo magacaawdo maamul dalkana uu ku jiro nidaam federaal ah. Dowladda federaalka ayaa hore ugu guuldareysatay isku day ay doonaysay inay ciidamo Itoobiyaan uga adeegsato doorashadii madaxweynaha Jubbaland ee mar kale dib loogu soo doortay Axmed Madoobe, waxaana haatan socdo qorshe kale oo maamulka Axmed Madoobe looga goynayo gobolka Gedo. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay wado qorshaha gobolka Gedo loogu madax banaaneynayo maamulka Axmed Madoobe, iyadoo ujeedka laga leeyahay qorshahani uu yahay doorashada soo socota ee xildhibaanada federaalka ka imaanaya gobolka Gedo in ay dowladda maamusho ololaheedana ay hoos tagaan. Madaxweyne Farmaajo ayay ka go'an tahay si uu kursiga ugu sii fariyay in xitaa dhiig fara badan uu u daadin karo, iska badaa maamulo dhisan burburintoodee. Beedhabo gumaad ayuu ka geystay, Kismaayo cunaqabateen ayuu saaray, galmudugna madaxweynaheedii Xaaf asagoo nool ayuu wilaayada xoog ugu wareejiyey wasiir Sabriye. Haddii aan maanta laga hortagin qalalaasaha uu Farmaajo dalka ka wado, waxaa dhici doonta wixii adeerkii Siyaad Bare uu geystay wax ka weyn. Dhanka kale, wararka aynu ka helayna deegaanka Ceel Cadde oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay saaka la wareegeen dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. La wareegidda Al-Shabaab ee deegaanka Ceel Cadde ayaa timid kadib markii ay weerar ku qaadeen halkaasi oo markii horeba ay ku sugnaayeen ciidamo deegaanka ah oo iskooda isku abaabulay, waxaana deegaanka ka dhacay dagaal kooban oo muddo socday. Dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya in ay arkayeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo wata gaadiidka nooca dagaalka ah oo gudaha u sii galaya deegaanka Ceel Cadde oo qiyaastii 55 kiiloomitir u jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, isla markaana haatan halkaasi ay ku sugan yihiin. Shalay ayay ahayd markii Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Farliwaax oo 45 kiiloomitir u jirta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana la sheegay in halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii dowladda kadib markii dayac iyo duruuf baahsan ay soo wajahday. Weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada iyo maamulka gobolka Hiiraan oo ay uga hadlayaan in Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Ceel Cadde. Dhanka kale, wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ay toogasho ku fuliyeen ilaa 3 ruux oo ay kooxda ku eedeysay in ay askar ahaayeen. Al-Shabaab ayaa raggaani ku eedeysay in 2 ka mid ah ay ahaayeen askar, kuwaas oo ka kala tirsanaa ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland, halka midka saddexaadna ay ku eedeysay inuu la shaqaynayay ciidamada Kenya ee ka howlgala deegaanka Hoosingow. Toogashada ayaa ka dhacday fagaaro ku yaala degmada Kamsuma ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. Sidoo kale fagaaraha 3 qof lagu toogtay ayaa waxaa ku sugnaa dadweyne la isugu yeeray halkaas iyo xubno sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Muuse Xuseen Siyaad oo ay Al-Shabaab ku sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada Mareykanka uu tababaray ee Bancrafta, kaas oo ay sheegeen inay ka soo qabteen wadada u dhaxaysa degmooyinka Walaweyn iyo Afgoy ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xuseen Maxamed Cabdi Arsal oo ay kooxda Al-Shabaab ku sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada Jubbaland, gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanka Barsanguni. Waliir Yarow Cali oo 75 sano jir ah, taas oo Al-Shabaab ay sheegeen in uu la shaqaynayo ciidanka Kenya, gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanka Hoosingow ee Jubbada Hoose. Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa xukuno u badan dilal ka fulisa deegaanada ay gacanta ku haysa ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa hadda u muuqda mid cadaadis la saaray si xilka loogu wareejiyo.
waxa ugu weyn ee wasiirka lagu jahwareeriyay ayaa ah galmudugta is haysata oo jaan iyo cirib meel uusan ku dayin aysan jirin balse uu xal u weysan yahay. ganacsado hore ayuu ahaa wasiir Sabriye ka hor inta aan wasiirka loo magacaabin, waxaana beesha hawargadir ee uu ka soo galay xilkan markii Yuusuf Garaad laga qaaday jagadii wasiirnimo ee beesha uu ku hayay magaceeda. ilo madax bannaan ayaa u sheegay shabakadda Sirta Media in wasiir Sabriye ay hadda u badan tahay in booska wasiirnimo uu waayo. senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in uu u dagaalamayo sidii beesha Sacad qof ka soo jeeda xilka Sabriye baneenay loogu dhiibi lahaa. xildhibaan Qaybdiid ayaa sheegay in Cawaale Kulane ay la doonayaan wasiirka arrimaha gudaha iyadoo uu kaashanayo loolanka socda sidii loogu dhaweyn lahaa Samira Geyd oo la taliyo u ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. isku shaandhayn dhawaan la samayn doono ayaana wasiir Sabriye daaqada looga saari doonaa sida xafiiska ra'iisul wasaare Khayre xubno ku dhow ay sheegeen. waa uu aqbalay ra'iisul wasaaraha arrintan loo soo jeediyey si loo yareeyo awoodda Axmed Ducaale Geyle Xaaf ayayna dowladda wasiir ugu dhigaysaa Cawaale Kulane oo ka soo jeeda beesha Sacad. hore waxaa rabitaanka Cabdi Qaybdiid ugu yimid loona magacaabay Sareeyo Guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaan Kaniif, taasoo laga dhigay bishii Oktoobar 2019 taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana Kaniif uu ahaa darawalka qaaska ah ee Cabdi Qaybdiid. dhanka kale, war degdeg ah oo hadda ina soo gaaraya waxa uu sheegayaa in warar hoose oo ayna helnay ay sheegayaan in Generaal Cabdiraxmaan Tuuryare uu gebi ahaanba isaga baxay musharaxnimada xilka madaxweyne maamul goboleedka Galmudug. wararka ayaa tilmaamaya in Tuuryare uu ku qanci waayay qaabkay wax u socdaan iyo dhexdhexaadnimada guddiga. sidoo kale ilo ku dhow Tuuryare ayaa inoo sheegay in markii hore uu rajo ka lahaa qabashada xilka madaxweynaha Galmudug, balse arrinta ay ku cuslaatay markii wax walba indhihiisa ku arkay. shakhsiga ugu tunka weyn ilaa iyo haatan ee loo saadaalinaya inuu qabto xilka madaxweynaha Galmudug waa gaandharigii hore ee Axmed Qoorqoor oo ah shakhsiga keliya ay wadato dowladda dhexe. Qoorqoor ayaa ah nin aan waxba qorin oo waxna aan akhrinin, kaasoo ay dowladda ku doonaysa in ay wax walba ugu meeriso aayaha iyo masiirka Galmudug. sidoo kale wararka inaga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in mid ka mid ah gacanyareyaashii Axmed Qoorqoor uu isu sharaxay xilka madaxweynaha Galmudug. Axmed Shire Maxamed Falagle ayaa shalay galab lagu arkay sawiradiisa qayb ka mid ah magaalada Dhuusamareeb. Falagle ayaa la filayaa in isla maanta uu isku diiwaangeliyo musharaxnimadiisa madaxweynaha. arrintan ayaa imaanaysa xilli 4 musharax madaxweyne ay ka hor yimaadeen inay isdiiwaangeliyaan iyagoo oo taasi cabasho uga dhigay in aysan ku qanacsaneyn hanaanka doorashadu u socoto iyo dhexdhexaadnimada guddiga. Axmed Falagle ayaa u muuqda shakhsi aan han badan ka lahayn xilka madaxweynaha Galmudug, balse taasi ay tahay siyaasad la doonayo in lagu soo saaro gaandharigii hore ee Axmed Qoorqoor, kaasoo lagu tuhmayay in madaxda dowladda ay wataan. dhanka kale, madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali ayaa mar kale sheegay in dowladda dhexe ay afduubatay hanaankii doorasho ee Galmudug. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir ayaa lagu sheegay in heshiiskii ahlu sunna iyo Galmudug uu qayb muhiim ah ka ahaa geedi socodka Galmudug, hase yeeshee ay gebi ahaanba heshiisyadaasi ay afduubatay dowladda federaalka. sidoo kale ahlu sunna ayaa dowladda federaalka ugu digtay haddii ay wax ka bedeli weydo sida ay haatan wax ugu wada Galmudug, in ayaga oo kaashanaya dadka reer Galmudug ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay dhisi doonaan Galmudug loo dhan yahay. khilaaf xooggan ayaa ka dhex tolan ama ka dhex shidan madaxda dowladda federaalka, ahlu sunna wal jamaaca iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geyle Xaaf, kuwa oo isku fahmi la doorashada ka dhici doonta Galmudug. guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. wixii warar iyo siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.